شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دawadayaal muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay Sunday ama Axadda. Jumca waa kulan, Sabti waa nasasho, Axad waa keli, Ithnain waa laba, Thalatha waa saddex, Arbaca waa afar, Khamiisna waa shan. Ma jirto maalmaha aynu soo sheegnay maalin keliya oo wadata magaca Ilaahay ilaa Axadda mooyaane. oo Ilaahay wuxuu leeyahay qul huwa Allahu axad, Allahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Maalinta Axaddu ma aha maalinta la inoo gaar yeelay ama la inooga dhigay ciidda isbuuca, balse Axadda waxaa iska leh Kiristaanka oo Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam maalmaha ka mid ah oo ay Jumco ahayd waxa uu yidhi maanta innaga iska leh, berina Yuhuudda, isaha dambena waxaa iska leh Kiristaanka. sidaa darteed maanta aynu nasanna innagu waa Jimcaha, Sabtidana waa Yuhuudda. oo mufasiriinta badankooda waxay yidhahdaan Sabtida Ilaahay waxba ma uu abuurin, sidaa darteed ay Yuhuuddana u idhaahdeen nooga dhiga Sabtida ciidda. Axadduna waa Kiristaanka. macnaha kelmadda axadna si aynu hore usoo sheegnay waa keli, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jira cid cibaadada la wadaagta. cidda Ilaahay cibaadada cid la wadaadajisaana faqad istaxalla cibaadata alawthaani, waxa uu xalaashaday caabuditaanka sanamyada, xukunkiisuna waa mushrik. shirkiyada ugu waaweyn kale waxaa ka mid ah inaad Ilaahay u sugto walad ama ilmo. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala cadho muu cadhoon, la mid a cadhadu ka cadhooda ciddii u sugtay walad. maantana ummadaha ugu badan ee ka sheega Ilaahay inuu dhalay walad waxaa kow ka ah Kiristaanka. ummaddii looga dhigay ciiddooda isbuuca al-Axad oo ku tusinaya in Ilaahay aan cidna dhalin, cidna aanu dhalin. Ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan. Ilaahay ku magacaabay maalin ka mid a maalmaha toddobaadka Axad oo ah keli. haddaba daawadayaal fa aaminuu billaahi wa rasulihi walaa taquuluu thalaatha intahuu khayran lakum inama allahu ilaahun waaxid subxaanahu an yakuuna lahu walad. Ilaahay waxa uu ogaa subxaanahu wa tacaala in ay iman doonaan ummad u sugi doonta walad. sidaa darteed waxaa Ilaahay u doortay maalin ka mid a maalinta toddobaadka al-Axad si aan looba iloobin. Ilaahay daliilka meel kasta waa uu inaga tusay, laakiin bani aadamkii ayaan uga jeedin. Ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq. waxaanu ka tusi doonnaa aayadahayaga jihooyinka ku hareeraysan iyo nafahooda. waana labada qofka bani aadamka ugu dhow, oo qofka naftiisa wax laga tusay iyo ka hareerihiisa wax laga tusayba daliilku waa uu cad yahay. haddaba shaydaanku waa uu ogaaday arrintaa, isagoo hore ugu dhaartay inuu dadka luminayo. haddana waxa uu go'aansaday in dadka ay caabudaan ilaah aan ilaahay ahayn. laakiin daawada waxa isweydiin mudan, sidee dadku ugu qanceen ilaahaas? ugu horrayn daawade, diinteenna islaamku waa diin ku dhisan ghaybka, oo waa sababta aynu rumaynay Ilaahay innagoo aan arag malaa'igta, jannada iyo naarta. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa uu ku ammaanay dadka mu'miniinta oo waxa uu yidhi waladiina yu'minuuna bilghayb. marka labana waxa uu yidhi waladiina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablik wabilaakhirati hum yuuqinuun. shaydaankuna dadka waxa uu uga soo dhacaa marka ay rumayn waayaan ghaybka. oo waa tii reer bani Israa'iil markii ay Nebi Muuse ku yidhahdeen sallallahu alayhi wasallam lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra, ku rumayn mayno ilaa aad Ilaahay toos noo tusto. yacni ghaybka ayay diidanaayeen oo Ilaahay gayb way ku rumayn waayeen. dabadeetna fattakhada qowmu muusa min xuliyihim cijlan jasadan lahu khuwaar. dabadeedna qowmkii Nebi Muuse sallallahu alayhi wasallam Saamiri ayaa u sameeyey dibi, dabadeedna ku yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi. ilaan iyagu waxay rabeen in wax la tuso, waxaana lumiyey shaydaan. haddaba daawade, qodobkeena maanta waxa uu ku saabsanaa Sunday, maalinta cadceedda. maxaa ka dhexeeya shaydaanka iyo cadceedda? waxa uu yidhi hudhudkii Nebi Suleymaan calayhi salaam markii uu soo arkay reer Saba iyo boqoradoodii isagoo ka warramaya,
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون waxaan soo arkay iyadii qoomkeedu u sujuudaya cadceedda shaytaankuna uu ka lumiyay wadadii xaqa ahayd nabigeennuna sallallahu alayhi wasallam waxa uu inooga digay in aynaan tukan cadceed soo baxa sababtoo ah shaytaanka ayaa labadiisa gees ku beegaa halkaas ayna ka soo dhex baxdaa oo aynaan tukan cadceed dhaca sababtoo ah shaytaanka ayaa labadiisa gees ku beegaa halkaas ayay ka dhacdaa waana xilliga ay tukadaan kuwa shaydaanka caabudaa cadceeddu waa makhluuqa weyn ee laga abuuray naarta shaydaankana waxa laga abuuray naar oo waa kii shaydaanku lahaa ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin kuwa shaydaanka caabudaana waxay isku magacaabaan mutanawwiriin iyagoo u tiirinaya nuurka ka soo baxaya cadceedda iyo iftiinka shaydaanka haddaba si shaydaanku uga saaro kelinimada ilaahay meesha una ilowsiyo dadka maalinta al-axad ayaa waxa uu waxyooday kuwa caabuda inay cadceedoodana maalin u sameeyaan waana isla maalinta axadda oo meesha laga saaray waxaanu daliil looga dhigay miydaan arkayn in meerayaasha oo dhani ku wareegayaan cadceedda in makhluuqaadka oo dhan ku wareegayaan cadceedda ummadweyntii kiristaankuna waxa ay qaateen magacyadii cusbaa iyagoo moodaya wax ay iyagu samaysteen oo ay ummadaha kale kaga duwan yihiin iyadoo maalina loo tiiriyey cadceedda maalinta ku xigtana loo tiiriyey dayaxa innaguna waa aynu qaadannay innagoo laynagaga xidhay biilasha iyo deeqaha inooga imaada gaalada una haysanno maalmo caalamiya daawade waxaan ku rajaynayaa inaad kororsatay xaqiiqo cad haddaba daawade waxaan kugula talinayaa wixii aad garanaysa xumaantiisana haba samayn wixii aanad garanayna wadda cad ka mar ilaahayna waxaan ka baryayaa in aanu inagaga dhigin gaalada fitno